agaasimaha fayadhowrka magaalada Burco ee wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Faarax Cali Dalmar oo ay weheliyaan xubno kamid ah shaqaalaha waaxda fayadhowrka oo ah ardayda barnaamijka shaqo qaran ayaa ka warbixiyay waxyaabaha uga qabsoomay sanadkani caafimaadka iyo fayadhowrka magaalada Burco. agaasimaha ayaa sheegay in ay ardaydani barnaamijka shaqo qaran ee wasaaradda caafimaadku ay qayb weyn ka qaateen howlaha shaqo ee dhanka caafimaadka. wadii bilood u dambeeyay ama saddexdii bilood u dambeeyay howl badan baan qabanay, barnaamijyo badan baan qabanay. waxaa jiray in yaro shubana oo xilliyada maaragtay roobabka markay da'aan la arko iyo in yaro rabadaanada markay baxaan full boosino la arko. marka ilaahay mahadi weeye shubankaasi si fiican baa loo xakameeyay oo isbitaalka guud ayaa xarun looga sameeyay, si fiican baa loo xakameeyay. agaasimaha guud ee isbitaalka oo howlwareennada aad u hogaaminayana aad baan ugu mahadcelinaynaa. hay'adaha ka qayb qaatayna aad baan ugu mahadcelinaynaa sida Care oo kale ee hogaaminaysay Seenab Cali Salax. markaan magaalada gudaheeda ka warrabana kor baan u qaadnay fayadhowrka iyo nadaafadda. waxaana noo saamaxay bishii u dambeysay qoladan shaqo qaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu loodkii ugu horeeyay ee ka soo baxay u soo diray wasaaradaha caafimaadka. barasaabka gobolka Togdheerna uu qaybiyay qayb ka mid ah ee lagu soo qoray wasaaradda caafimaadka, gaar ahaan caafimaadka guud iyo fayadhowrka iyo nadaafadda ee igala shaqeeyeen ay wacyigelin badan ila fuliyeen magaalada gudaheeda. maantana waa kuwa dhinacyada inta badan taagan. marka caafimaadka guud ee gobolka Togdheer aad iyo aad buu fiican yahay. sidoo kale waxa iyaguna ka hadlay ardayda barnaamijka shaqo qaran ee wasaaradda caafimaadka. anagoo ah waaxda shaqo qaran ee gobolka Togdheer, dhalinyarada ee waaxda caafimaadka ama wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer, departmentka fayadhowrka guud ama caafimaadka guud iyo fayadhowrka. waxaan halkan fariin aan uga darinaa bulshada gobolka Togdheer, gaar ahaan degmada Burco iyo guud ahaanba inay ku dadaalaan nadaafadda iyo fayadhowrka, lana soo socodsiiyaan insha Allah xafiiska degmada wixii cabasho ama dhibaato ay arkaan insha Allah taala. anagoo ku jirna shaqadii uu noo idmaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, hadal hayntiisuna ay ahayd inaanan anagu qaranka ka shaqeysan ee aan u shaqeyno anagu fulintaas. waxaanu bilaabnay inaanu howlahaygii gallo, aanu kulay shaqadeedii iyo waxyaalahay aan qabsano ka wax ahaan iyo ka bax caafimaad ahaan gobolka Togdheerba. marka kulay de waxyaalahan qabanay iyo waxyaalahan qaban doono insha Allah taala oo kala shaqeyn doona wasaaradda caafimaadka iyo waxyaalaha qaban doontaba. agaasimaha fayadhowrka wasaaradda caafimaadka ayaa shahaado sharaf ku maamusay Bulsha TV, taasi oo xusay in ay ku mutaysteen baahinta wararka iyo barnaamijyada wacyigelineed ee fayadhowrka bulshada. waa Fahmi Kaysa Xirsi, Bulsha TV, Burco.